Asalaamu calaykum asxaabta ku xiran janaalkeena Ogaalo. Maanta waxaan ka hadlaynaa sidee naftaada u jeclaysiin kartaa akhriska. Sidee ku akhrin kartaa bil walba hal buug, sanadkii 12 buug. Akhrisku waxa uu kordhiyaa xasuustaada, aqoontaada. Aqoontuna waa awood. Dadka dunida horumarka ka gaaray waxay sanadkii akhriyaan in ka badan 45 buug. Sidoo kale waxaan inteena badan maqalnaa oraahda leaders are readers oo micnaheedu yahay akhristaha maanta waa hogaamiyaha beri. Hadda maanta muuqaalkan waxaan kugu soo gudbinayaa 6 tallaabo oo kaa saacidi doonta inaad hal buug ku akhrisid hal bil. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Qodobka koowaad, tiri inta page uu buugga ka kooban yahay. Waxaan ula jeedaa tiri buugga inta page uu ka kooban yahay, kadibna u qaybi 30 maalin adigoo ku saleynayo saacadaha aad firaaqada haysatid. Tusaale ahaan, haddii aad maalinkii akhrisid 15 page oo keliya, waxaad isbuucii ku akhrin kartaa 105 page, bishiina 420 page. Waxaad sidaas ku dhammayn kartaa hal buug 30 maalin gudahooda. Waa muhiim inaad buugga tiradiisa aad ka warhaysid marka aad bilaabaysid akhrintiisa. Tusaale ahaan buugga aad akhrinaysa hadduu yahay 300 page, waa inaad u qaybisaa 30 maalin. Tusaale ahaan wuxuu noqonayaa maalin walba inaad akhrisid 10 page oo keliya. Marka waa muhiim inaad buugga aad soo gadanaysid mise aad akhrinaysid aad taqaanid inta uu ka kooban yahay. Qodobka labaad, waqti u deji akhriska. Waa inaad akhriska waqti u samaysaa, tusaale ahaan 30 daqiiqo inta aanan seexan ka hor. Waa inaad kalendarka ku qortaa maalin walba waqtiga aad wax ka akhrinaysid. Waxaa laga yaabaa maalmaha qaar inaadan ka gaarin hurdada ka hor inaad wax akhrisid. Laakiin waxaad samayn kartaa inaad 30 daqiiqo meel kale aad u rartid. Tusaale ahaan, marka aan soo tooso shaqada intaan aadin ka hor 30 daqiiqo inaad wax akhrisid. Waxaan inteena badan ilaalinaa ballamada aan dadka kale la galno. Maxaa inoo diiday inaan akhriskana aan la ballanno oo aan ballankiisa ka soo baxno oo aan ballan u yeelano inaan wax akhrino. Qodobka saddexaad, u qaado buugga meel walba oo aad aadaysid. Haddii aad jeceshahay inaad akhriska jeclaatid, waa inaad buugga jeclaataa. Waxaad jeceshahayna meelkaaga ma haraan. Waxaan ula jeedaa meel walba oo aad aadaysid buugga hore u qaado. Mar walba aad fursad heshid si aad u akhrisid. Tusaale ahaan waxaad ka shaqaysaa xafiis. Buugga xafiiska u qaado si aad markaad fursad hesho aad u akhrisid. Haddii aad buugga culayskiisa diidaysid, moobilkaaga ku qaado oo ku akhriso marka aad fursad heshid. Qodobka afaraad, ka sheekay waxa aad akhrisay. Waa sabab kale oo ku jeclaysiin kartaa inaad akhriska xiisaysid. Waxaad akhrisay 15 page maalinkii. Ugu sheekay asxaabtaada waxa aad maanta akhrisay. Ayaga waxay u noqonaysaa faa'iido, adna waxaad ku sii jeclaanaysaa akhriska. Inaad ka sheekayso waxa aad akhrisay ayaa qayb ka qaadan karta inaad akhriska jeclaatid. Waa muhiim waxa aad akhrisay inaad dadka u gudbisid. Asxaabtaada, familkaaga, dadka kugu dhow mar walba aad u sheekayn kartid ugu sheekay waxa aad akhrisay. Waxaad meeshaas ka sii qaadi kartaa ama aad ka sii bilaabi kartaa akhrinta inaad jeclaatid. Marka qodobka afaraad wuxuu yahay inaad ka sheekaysid waxa aad akhrisay mise buugga aad soo akhrisay inaad asxaabtaada la wadaagtid waxyaabaha uu ka sheekaynayay. Qodobka shanaad, dhegayso cajaladaha buugga. Waxaan ula jeedaa buug kasta waxa uu leeyahay inta badan codad ama audio book. Waxaana ku duuban buugga oo qof kale kuu akhrinayo. Taasi waxay qayb ka qaadan kartaa ama qayb ka noqon kartaa inaad akhriska xiisaysid. Waa muhiim marka inaad cajaladaha buugga aad dhegaysatid. Cajaladaha buugga dhegaysigood waxay kaa caawin kartaa inaad fahantid fikradda uu xambaarsan yahay buugga, waxtarka uu leeyahay. Kadib waxaad bilaabaysaa inaad akhrinta buugga bilowdid xilliga aadan dhegaysanayn. Marka waa muhiim inaad cajaladaha buugga aad dhegaysatid. Qodobka lixaad ee ugu dambeeya, ku biir naadi akhris wadareed. Waxaa inta badan jira naadiyaal dhiirigeliya akhriska ayagoo qabto waxa loo yaqaano akhris wadareed. Taas oo ah in kulan la qabto kadibna si wada jir ah buug loo wada akhristo. Waxaad ka faa'iidaysaa sida ugu habboon ee buugga loo akhristo. Taasna waxaa ka dhalanaysa inaad akhriska jeclaatid. Waxaa jira naadiyaal badan oo aad ku biiri kartid oo ka jira magaalooyinka iyo guud ahaan gobolada Soomaaliya. Waxaana ka mid ah naadiga akhriska iyo qoraalka Banaadir iyo sidoo kale naadiga akhriska iyo qoraalka gobolka Bay iyo kuwo kaloo badan. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ka heshay fadlan like saar. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir adigoo calaamadda subscribe ta taabanayo. Mahadsanid.